ganacsigu halbowlaha waxaa ee uu ku socdaa waxa weeyaan shaqaalaha haddii aan la tababarin oo aan la tageyninna way adkaanaysaa ganacsigaas inuu wax weyn oo socod sameeyo oo uu horumar mentorship laba qaab aan u sameeyaa mentorship qaab waxaan sameeyaa qaab group mentorship oo wax weeyaan koox sanadka inta badan waxaan siiyaa shaqaalaha shirkad amba dad doonaya inay si ganacsi wada samaystaan oo maamula ayaan si gaar u siiya group ahaan baan ku siiya marka waa qaab life oo toos ah yani aan wada sheekaysano weygii oo kale aan hours qabsanayno gaar ah oo saacado gaar wada shaqaynayno okay qaybta labaad wax weeyaan waa qayb one in one amba one on one sessions yani mentorship okay mentorshipkaasi wax weeyaan isaguna qof si gaar ah u dhisaya haddii aad tahay maamul amba mulkiile ganacsi afarta qaybood ee shaqaalaha ayaan kula wadaagi doonaa iyo mid kasta nidaamkii tahay nabad ganacsiga laba qaab u bilaabi karaysa يعني هدول كابي وين القوت كذا واحد أديك عنك بعصرين أو family business كا هو استعادي أو وتضرب لك أنت نوش ثلاثة صباح وبتكلم معك على حلا وإما أنا بسمي سجى نعسي بالشيء يعني كنعس أديك كوي أو كنعس بالشيء ده فأديك تبغى تشيل أقول لك سجى اللي هو حويا المجرنا سدح تويدا لأنه ولا تيجي سبعين كانوا مثل دول يصير كنعس بالموضوع واحد باقي أنت هاي أنت كنعس بلابين أفضل شيء هديت اللي كنت هاي إن أنا كنعس بسرعة سيدي أقول هذا شيء إنه بسرعة أو بحاول ساعده أنجي هلاقيها سدح نقطة بتقول إن أي سوى Furaale Business Mentorship Program waa barnaamij aan ugu talagalay inaan kor u qaado heerka aqooneed ee dhalinyarada ganacsiga ku jirta ama doonaysa inay ganacsiga wadaan. Isoo tahay inay xogtu ama waxa laga dhaafado ay tahay shayga ugu wanaagsan ee ugu go'aan qaadashada ku jira ganacsiga. Haddii aad tahay qof iskala ganacsi ama hal ganacsi wax ka badan waxaad ogaataa sababaha dawakha iyo jahwareerka uu keenay haddii noqoto maamulka maaliyadda ganacsiyadaada ka soo gelaya iyo ka shaqsigaaba waxa kow ka inaanad kala saarin ganacsigaaga iyo naftaada inuu qof self discipline oo qof naftiisa waayo ganacsigaaga la yiraahdo wuxuu weekaan sida dadka haddii aad caajisto ganacsigaaga wuxuu soconaysaa mush haddii energy ka ganacsigaaga wuxuu soconaysaa yani wanaagsan oo yani horumar